ciidamada dowladda federaaliga ah ee Itoobiya ayaa waxa la sheegayaa in ay qabteen madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo loo qaaday dhinaca Addis Ababa waa kan Cabdishakuur Day Maxamed madaxweynihii deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa subaxnimadii saaka ciidamada federaalku ay hareereeyeen guriga uu ka deganaa magaalada Jigjiga kadibna Cabdi Maxamuud Cumar oo ay weheliyaan saraakiisha ciidamada federaalka ee ku sugan Jigjiga waxa cabaar ay kulan ku qaateen xero military oo ku taala magaalada Jigjiga xarunta ismaamulka Soomaalida halkaas oo ugu dambeyntiina diyaarad lagaga qaaday magaalada Jigjiga iyadoo sida lagu soo warramayo loo qaaday dhinaca magaalada caasimadda Addis Ababa inkastoo xaaladda magaalada Jigjiga ay maanta xasiloonayd haddana fiidnimadii caawa ayaa waxa ka dhacay isu soo baxyo ay dadka shacabku sameeyeen kadib markii dadku ay maqleen warar sheegaya in magaalada Jigjiga lagu soo celiyay Cabdi Maxamuud Cumar